kulanti waxaan daawadyaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka ee warbaahinta ogaal waa 14 bisha daawadayaal ee January 2021 waa maalmo khamiis ah qodobada wararkeena aan ku soo qaadanayna waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay in la dhisayo maxkamadda dastuuriga xilli dawladda waqtigeedu gabagabo mariyo dawladana waxa ay ciidamo ku soo daadisay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo ilaa hadda la ogeyn sababta ka dambaysa gudoomiyihii gobolka Gedo oo xilka laga qaaday iswaan oo gaaray magaalada Baydhabo iyo Kongareeska Mareykanka oo mar kale soo jeediyay xilka qaadista madaxweyne Trump qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso ayaan ku soo qaadanayna warbaahinta ogaal daawadayaal haddii aad ka mid tahay saaxiibada ku cusub wararkeena warbaahinta ogaal waxaan ka codsanaynaa inaad halkan subscribe saarto gabalaalkan aad furato si aad uga mid noqoto kumanaanka kuna qof ee nagu taxan ee wararkeena maalin kasta sida tooska u helo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay shir sanadeedka garsoorka Soomaaliya oo madal lagu lafaguri ah waxyaabihii garsoorka u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimidba sanadkii tagay iyadoona lagu jaangoonayo qorshayaasha sanadka cusub Roble ayaana tilmaamay hufnaanta hannaanka cadaaladda iyo sanaynta sharciga inuu yahay tiir muhiim u ah dowladnimada laguna gaari karo xasilooni iyo horumarta qaada garsoorku waa albeega isku dheelitirka xiriirka bulshada ka dhexeeya dhowista xuquuqda insaanka iyo waajibaadka asaasiga ah ee shacabka ay ku leeyihiin dowladooda taas oo ugu horeyso in aan laga musuqmaasuqin canshuurtooda looguna adeego si siman oo cadaalad ayuu yiri Roble ayaana xusay dhismaha golaha adeega garsoorka markuu soo dhamaado inay fududaan doonto dhisidda maxkamadda dastuuriga ee dalka oo kamid ah tiirarka ugu muhiimsan ee hannaanka doorashada ee dalka waxa uu sidoo kale golaha wasiiradii golaha shacabka waxa ay ansixiyeen 3 heshiis oo saldhig u ah la dagaalanka musuqmaasuqa oo kala ah baa yiri heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa heshiiska midowga Afrika ee kortagida iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiska Carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa Roble ayaana waxa uu kula dardarmaamay bahda cadaaladda inay musuqmaasuqa ka fogaadaan noqdaan kuwa loo soo ordo oo aysan noqon kuwii laga cararay waxa uu xukuumadda hogaamiyay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa kordhisay miisaaniyadda sanadlaha ee hay'adaha garsoorka si kor loogu qaado xuquuqdooda taas oo looga fogaanayo laaluush isdamarin xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin kulankan ayaana waxa uu ku soo aaday xilli dowladda madaxweyne Farmaajo ay muddo xileedkeeda aad u yaryahay isla wararkaas ayaanu ku jirnay gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa xilka laga qaaday sida warbixin ay ku helayno iyadoona la sheegayo in xilka si wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland uu xilka qaadintan uu sameeyay waxaana la sheegayaa Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo haatan si dhow ula shaqeeyo dowladda Soomaaliya xilka qaadista uu ku sameeyay maamulka gobolka Gedo ee garabka dowladda kadib wareegto uu soo saaray maanta ay 14 bisha January wareegtadan ayaana lagu xusay in xilka loo qaaday gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow iyadoo xilkaas loo magacaabay gudoomiye cusub oo loo magacaabay Axmed Buule Great Macalimow ayaana xilkan hayay wixii ka dambeeyay tan markii ciidamada dowladda la geeyay gobolkaas ayaa waxa lagu eedeynayay xil gudasho la'aan ay ku aadan tahay shaqadiisa sidoo kale gudoomiyaha cusub ayaa la faray inuu si degdeg ah ula wareego xilka loo magacaabay iyadoo uu sidoo kale laamaha amniga la amray inay la shaqeeyaan xilka qaadistan ayaana ku soo aadaysa iyadoo ay muddooyinkan u dambeysay ka sii daraysa xiisadda gobolka Gedo ee dowladda dhexe Jubbaland waxaana sidoo kale ay arrintan saameyn ku yeelatay doorashooyinka guud ee dalka ka dhacaysa sanadkani dhanka kalena waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa in ciidamo badan lagu soo daadiyay magaalada taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayaa ciidamo booliis ah dhigay wadada 21 Oktoobar ee ka leexata kilometer 4 isla markaasna tagtay ilaa dekedda Muqdisho kadib markii halkaasi ku kordheen qaraxyada dhulka la geliyo oo ay ku dhintaan dad badan kuwa kalena ay ku nafwaayaan wadadan oo maristeeda muhiim tahay isla markaasna kamid ah wadooyinkan mashquulkooda ama ciriirigooda badneen ayaa dhowr jeer waxaa si joogta uga dhacay qaraxyo u badan minooyinka soo booda oo la dhigo laamiga geeskiisa taas oo lala beegsaday saraakiil ciidan iyo shaqaale dowladeed intaba waxaana dadka halkaasi lagu qarxiyay isla markaasna ka badbaaday waxaa kamid ah Jarnaal Cali Xirsi Bare Cali Gaab oo 2 jeer lagu qarxiyay gudoomiyaha degmada Hoodan oo ilaa hadda la jiifo dhaawicii ka soo gaaray iyo 10 qof oo kale qarixii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka badbaaday afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaana talaabadan lagu dhigay ciidanka la aaminsan yahay inay yareeyaan karto qatarteeda weyn ee halkaasi ka jirta wadada hadda la dhigay
ciidanka ammaanka ee booliiska Soomaaliyeed dhowr jeer hore ayaa dowladda Soomaaliya loogu baaqay inay ciidan dhigto sidoo kalena waxaa sidaas oo kale ciidan in la dhigo u baahan wadada Cabdiqaasin oo noqotay meel ay ku bateen qaraxyada dhulka la geliyo guud ahaantaba wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo wafdi hogaaminaya gaaray Baydhabo ee xarunta gobolka Baay si weyn halkaasna loogu soo dhaweeyay Swan iyo wafdigiisa ayaa qayb ka ah madax ka socota hay'adda kala ah IOM iyo waliba OCHA ayaa kuna albaabada u xiran yihiin waxay la yeesheen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wararka ayaana sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda adag ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee dalka sidoo kalena labada dhinac ayaa soo hadal qaaday arrimaha ay ka mid yihiin gargaarka iyo saameynta ay ka dhalatay ayaxa safarka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ku soo aaday iyadoo ay weli halkiisii ay tahay ismarwaaga doorashada ee u dhaxay dowladda iyo mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah maamulada taabacsan dowladda dhexe iyadoo la filayo inay bilowdo doorashada gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee dhawaan xaaladda siyaasadeed dalka ayaana mid aad u cakiran waxaana arrimaha ay ku soo beegmayaan xilli ay dowladdu ku dhawaaqday hirgelinta doorashooyin ka dhaca guud ahaanba dalka waxaana ilaa hadda ay tahay mid laisku mari laayahay ugu dambeyn daawadayaal Koongareeska dalka Mareykanka ayaa maanta mar kale ka doodaya xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump afayeenka Koongareeska Nancy ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqday in mar kale aqalka ay hogaaminayso soo jeediyay in xilka laga qaado madaxweyne Donald Trump waxaana xilka qaadistiisa loo gudbiyay aqalka sare ee Mareykanka xildhibaano gaariya 232 ka tirsan Koongareeska ayaa u codeeyay in xilka laga qaado kadib markii lagu eedeeyay kicin dadweyne iyo xil gudasho la'aan arrintan ayaana ka dhalatay weeraradii taageerayaasha madaxweyne Trump ee dhawaan ku qaadan aqalka wakiilada ee Koongareeska ee dalka Mareykanka sidoo kale xildhibaano gaariya 10 ka tirsan isla xisbiga madaxweyne Trump hogaamiye ayaa sidoo kale u codeeyay in xilka laga qaado halka 197 xildhibaan oo ka tirsan isla xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ay ka soo horjeesteen xilka qaadistan ay soo jeediyeen aqalka Koongareeska ayaa ka duwantii hore markii hore ma aysan jirin xildhibaano ka tirsan xisbiga madaxweyne Trump oo u codeeyay soo jeedin xilka qaadis ah go'aanka Koongareeska oo loo gudbin doono aqalka sare ayaa haddii ay iyaguna isku waafaqaan waxay ka dhigan tahay in madaxweyne Trump uusan mar kale u tartami doonin xil madaxtinimo oo guud ahaanba Mareykanka ah meelmarinta arrintan ayaan aqalka sare ayaana u baahan doonto baa layiri aqlabiyadda xildhibaanada aqalka sare madaxweyne Trump oo muddo xileedkiisu ku eegay 20 bishan January ayaa waa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka mar labaad loo soo jeediyay in xilka laga qaado kadib markii lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dadkii weeraray aqalka Capitol intaas ayaana daawadayaal ku soo gabagabeynaa wararkeena maanta ee warbaahinta ogaal haddii aad ka mid tahay saaxiibada daawadayaal ku cusub warbaahinta ogaal waxaan si kaaga codsanaynaa inaad la sii wadaagto saaxiibadaada kale ee baraha bulshada isticmaala Facebookyada WhatsAppyada iyo waliba meelaha kale aad saaxiibada ku leedahayba anagoo markale isku dayi doono inaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya idin soo gudbino